waqti fog ka hor intaan magaalooyinku balaadhin waxaa jiray tuulo yar oo ku taal dhul qalalan oo ay dabaylo kulul ka dhacaan. Tuuladaas waxaa ku noolaa wiil la odhan jiray Sahal. Aabbihii wuu geeriyooday isagoo Sahal weli yar, hooyadiina waxay ahayd haweenay tabar yar oo ku tiirsan wiil. Sahal maalin walba wuxuu ka shaqayn jiray eel tuulada ku yaala. dadka ayuu biyo uga soo qaadi jiray, mararka qaarna wuu u shaqayn jiray xoolo dhaqatada. Qoraxdu markay kululaato, Sahal weligiis wuu joogsan jiray, dhididkana wuu masixi jiray, haddana shaqada wuu sii waday. Maalin subax ah, Sahal isagoo baaldi biyo soo saaraya, xadhigii baa goy, baaldigii wuxuu ku dhacay eelkii qoto dheer. Markuu hoos u fiiriyey, wuxuu arkay wax ifaya. Qalbigiisa wuu gariiray. Wuxuu soo dejiyey xadhi kale, mar kale ayuu wax soo qabay. Waa xabbado dahab ah, kuwa waaweyn oo dhalaalaya. Sahal wuu istaagay, gacmihiina way gariireen. noloshiisii saboolnimada ahayd hal ilbiriqsi ayay u ekaatay inay dhammaan. Laakiin qalbigiisa ayaa ku yidhi, haddii dahabkani qof kale leeyahay, tuulada ayuu u yeedhay. Odaygii ugu weynaa ayaa yimid. Markii Sahal u sheegay, odaygii wuxuu yidhi, eelkan waxaa lahaa nin ganacsade ahaa oo safar ku dhintay. Qofkii waxa ka hela waa tiisa. Markaa Sahal ayaa dahabkii qaaday, laakiin halkii uu naftiisa keliya u isticmaali lahaa, wuxuu hooyadii u dhisay guri adag, eel cusub u qoday tuulada. Masaakiinta cunto u qaybin jiray, shaqo u abuuray dhalinyarada. Sahal wuxuu noqday ganacsade weyn. laakiin waxa ugu weynaa ma ahayn lacagtiisa, waxay ahayd magaciisa. Dadku markay magaciisa maqlaan waxay odhan jireen, kani waa ninkii daacadnimadu kor u qaaday. Hanti waxay kaa tegi kartaa, laakiin magac wanaagsan weligiis wuu sii noolaanayaa.